السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. dabcan dad muslimiina ayaan nahay oo xamdinta allah waa qayb weyn oo ka mid ah nolol maalmeedkeena ama nolosheena oo idil. Shan salaadood oo aan tukano mar walba waxaan dhahnaa alxamdu lilaahi rabbilcaalamiin, balse xamdinta allah iyo in allah uga mahad celisa nimcooyinka kugu gadaaman imise saameyn la eg ayay guulahaada iyo noloshaada ka qayb qaadataa. Xamdinta allah waa dawada murugada, waa dawada caajiska, waa dawada farxadda, waa dawada kuu horseedaysa in aad gaarto guulooyin waaweyn uuna allah raali ka yahay. Uga mahad celi rabbiga dhammaan nimcooyinka uu ku siiyey. Nimcada ugu weyn uguna horeysa ay tahay in uu islaam allah rumaysan uu kaa yeelay, halka aadan adigu dooran inaad iimaan leedahay, in aad allah rumaysan tahay, in markaad murugo iyo ciriiri dareentid qalbigana aad dayiq ka dareento aad leedahay rabbi aad u noqotid. alaa bidikri illaahi tadma'inu lquluub. halka ay dunidu balaayiin dad ah aysan haysan idminaanu lqalbi ama sacaadatu nafsi, qalbi xasiloon iyo nolol farxad leh, aakhirkana ay sababto inay murugo la noolaadaan noloshooda oo idil ama ay naftooda ka takhalusaan. uwa xamdi allah nimcadaas weyn ee aad haysato. uwa mahad celi allah inuu fursad kuu siiyey maalin cusub adigoo nool, sariirtaada kasoo toosay iyo gurigaaga neefsanaya, neeftuna ay kaaga soo baxaysa iyadoo aysan qalab kugu xirnayn, halka ay balaayiin qof ee maanta dunida ka faaruqeen ama cusbitaale ay ku jiraan ay qalab ku rakiban yihiin, jeclaan lahaayeen oo rajayn lahaayeen inay maalin iyagoo caafimaad qaba gurigooda ay kasoo agtoosi lahaayeen. uwa mahad celi allah inaad haysato biyo nadiif ah iyo cunto aad maalintaas cuntid, halka ay dunida kumanaan dad ah ay u dhimanayaan haraad iyo gaajo ama ay cabayaan biyaha bulaacadaha iyo cuntooyinka qashinka lagu daadiyo. ma tirin karno nimcooyinku allahna siiyey, wa in tacuduu nicmat allahi laa tuxsuuha. nimco walba aad haysato xus oo rabbiga uga mahad celi. murugo walba, ciriiri walba, walbahaar walba, qalbijab walba xusuuso oo dheh alxamdulilah calaa kulli xaal. rabbiyo wax walbaad ii qortood ii qadartay mid ku qancaysa oo ku sabraysa ayaan ahay. yaa rabbi ilaahayow iga saar, hana ilaawin in dadkii ugu imtixaanka adkaa ay ahaayeen ambiyadii iyo rusushii. u malayn mayo inay ku haysato xaaladii nebi ayuub oo kale, balse wuxuu ahaa adoon allah uga mahad celinaya xaalood walba uu ku jiray, aakhirkiina allah wuu ka saaray. ogow, markaad u malaynayso inay wax walba wada dhammaadeen ayuu allah kuu furayaa waddo cusub aad dib wax uga bilaaban karto, si aad u faraxdo, si aad u guulaysato, si aad adduun iyo aakhiraba guulooyin waaweyn oo la taaban karo u gaarto. marka hore farxad geli rabbiga ku uumay kownkan oo dhanna ay gacantiisa ku jirto. fi amaanillah. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.